Ma ogtahay mise ma la socotaa in shirkado qiimahoodu gaaraya balaayiin dollar ay ugu dambeyn fashilmeen? Sababtuna ma aysan ahayn dhaqaale yari ama maalgelin la'aan ay markaas wajahayeen. Waxay ahayd go'aano aan sax ahayn oo la qaatay, qorshe istiraatiijiyadeed oo liidatay, iyo la talin aan la helin waqtigii loo baahnaa. Waxaan idinla wadaagayaa 3 shirkadood oo caalami ah oo failgaroobay, balse 10 ganacsi oo muhiim ah aan ka baran karno. Shirkadda koowaad waxaa loo yaqaanaa Kodak. Kodak waxay muddo dheer ahayd shirkadda ugu weyn ee sawir qaadista adduunka. Waxay ahayd shirkaddii ugu horeysay ee soo saarta farsamada kaamirooyinka dijitaalka ah ee loo yaqaano digital cameras. Si kastaba ha ahaatee, shirkaddu si dhab ah uma aysan fahmin isbeddelada cusub ee suuqa, mana aysan qaadan go'aamo istiraatiiji ah oo ku habboonaa waqtigaasi. Natiijadii ka dhalatay caqabadahaasi waxay u horseeday shirkaddii hormuudka ka ahayd suuqa sawir qaadista in ay gasho xaalad musallafnimo ah ama waxa loo yaqaano bankruptcy sanadii 2012. Shirkadda labaad waxaa loo yaqaanaa Blockbuster. Blockbuster waxay lahayd kumanaan xarumood oo ku baahsan dunida oo idil. Markii Netflix ay soo bandhigtay adeegga daawashada filimada iyo muuqaalada internetka ee loo yaqaano streaming, Blockbuster waxay ku guuldareysatay inay la jaanqaado isbeddelkaasi. La'aanta falanqayn suuqeed oo qoto dheer, hal abuur joogto ah, iyo la talin ganacsi oo xirfad leh ayaa sababtay inay si tartiib tartiiba suuqa uga baxdo shirkadda Blockbuster. Shirkadda saddexaad waa shirkaddii caanka ahayd ee Nokia. Nokia waxay mar ahayd shirkadda ugu awoodda badan ee soo saarta taleefanada gacanta. Muddo dheer waxay hogaaminaysay suuqa caalamiga ah ee isgaarsiinta. Hase yeeshee, shirkaddu waxay ku guuldareysatay inay si degdeg ah uga jawaabto kobaca taleefanada cusub ee loo yaqaano smartphones iyo baahiyaha cusub ee macaamiisha. La'aanta qorshe isbeddel oo istiraatiiji ah iyo la talin ku filan ayaa sababtay in tartamayaashu ay ka hormaraan, isla markaana ay Nokia lumiso hoggaankii suuqa. Haddii shirkado caalami ah oo leh khibrad, dhaqaale iyo sumcad weyn ay ku fashilmi karaan go'aano khaldan oo ay gaareen iyo la talin la'aan, maxaa ku dhici kara ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee aan helin hagitaan iyo talo xirfadeed? Ganacsi kasta wuxuu u baahan yahay qorsheyn istiraatiiji ah, falanqayn suuqeed, maaraynta khataraha, la talin ganacsi, iyo horumarinta wax soo saarka howlwadeennada. Arkaan Leadership and Innovation Hub waxay ka caawisaa ganacsiyada iyo shirkadaha dhisidda qorsheyn istiraatiiji ah, la talin ganacsi, horumarinta shirkadaha iyo ganacsiyada, dhisidda awoodaha shaqaalaha, iyo sare u qaadista waxqabadka guud ee ganacsiga. Ha sugin ilaa caqabadu kaaga timaado. Maanta qorshee si berrito ganacsigaaga uu u noqdo mid waara.